anagu ma hayno recordkii dumarka dahabka laga furay arurtan saacaha laga qaaday anagu ma hayno recordkeega laakiin lacagta mashruuca ku baxday inuu haynaa waa 22 milyan weeyaan waayahay markaan compare garayno labadii sanadood ee anagu aan hawshan gacanta ku haynay 18 February 2018 ayaa mashruucan dib anagu aanu bilownay mashruuca waxaan ugu nimid isagoo markaa dhisan 490 kilomitir markaa 70 kilomitir waxa dhisay wasiirkii ugu horeeyay ee Ali Marxaan baa dhisay oo ka xid muddo yara 70 kilomitir buu dhisay isaguna 40 kilomitir buu dhisay wuxuu Ali ku guuleystay inuu sameeyo waxa la yiraahdo dhammaan wadada survey-geygii iyo information-keygii iyo subgrade-keygii wadada dhan wala isku waqtina waa waliba waqti wuxuu ku beegmay isagu ay ahayd waqti campaign oo muddo 7 bilood ku dhawaad mashruuca soo taagnaa anagu labada sanadood waxaanu dhisnay 1 kilomitir boqoliyo 1 kilomitir baan dhisnay lacagta naga baxday mashruuca boqoliyo 1 kilomitir ka comparison man doonayna isbar badhigno waa 8 milyan iyo 800 dada labada sanadood waana 1 kilomitir 2020 waxa harsanaa 35 kilomitir baa harsanaa markii bilowgii 2020 imika waxaan waxba laga qabanin oo aan wali gaarin gacantaydu waxa weeye 38 kilomitir waxa kale noo suurta galay labada sanadood 230 Irish Bridge isagu wuxuu dhisay Irish Bridge soo dhisay waxa ahaayeen 3 anagu waxa noo suurta galay 230 Irish Bridge waxa kale oo noo suurta galay inaan soo iibinay 250 Calvert Bridges 17 container bay haayeen uma leen maayo goladiina saxaafadu inaad ka wahaysaan 17 container lacagta ku baxday waxa 900 iyo $830 oo gudida qadarasada qaranka ayaa baahisay imikana ma dhowtoole waxa ku guuleystay kambanigii dhisayay maadaama ay u baahan tahay farsamo iyo xirxiris intaas waa hawlqabadkii waxaanu sameynayna comparison baan isku barbardhigana waxa la oran doonaa lacagta qalab baa la geliyay muddada labada sanadood qalabkii meesha labada sanadood uu geliyay mas'uulkaasi aan jecelahay inaan halkan ka qoro aan ka xuso tirada guud ee machineries-ka qalabka wax lagu dhiso waa 840 labada sanadood intaan keenay marka laga reebo 8 gaari oo hay'ad naga soo galay waa 40 muddada labada sanadooda mas'uulkaasi 15 machinery buu keenay 15 ayuu keenay haddaan tafaasiil idinka siiyo waa iskargooyinka waaweyn 11 baan anagu keenay isagoo 4 buu keenay iskargooyinka yaryar 4 baan keenay waxba buu keenin grade risk waa garanaysaa ma malaynaya 3 baan keenay 2 buu keenay isagoo bulldozer risk laba aanu 3 baanu keenay labana waanu keenay oo meelaha ka soo qaadnay isagoo xabad buu keenay xabadana anigu gumaanima mashruuc iyadoo taala reelabiska labu keenay aniguna labaan keenay hooyada biyaha 3 baanu keenay mid buu keenay hooyada shidaalka oo mashruuc gaadiidkuna socdaan 4 baanu keenay isagoo waxba buu keenin waa jira workshop gaadiidka maadaama 9 machinery yahay wuxuu u baahan yahay workshop soconaya hal baan keenay ugu maano iman stone crushers ma karashada waaweyn ee dhagax burburiya waxaan keenay 2 isagoo waxaan sheegi kareen baa la keeno gacanta lagu burburo aan shaqeynin oo gacanta lagu gurayay waxba aan soo saaraynin marka waxaan tilmaami karnaa ma hooyada daamirka mid baan keenay mid buu keenay guriyaha shaqaalaha 4 baan keenay waxba ma keenin gaadiidka kale 8 weeyaan ee shaqaalaha qaada isagoo lagu keenay wiil loo briska 2 xabo keenay anigu waxaan ma keenin wiil loo briska marka tirada guud haddaan oran lahayn qalab baa ku baxay lacagtaas taan oran lahayn qalab baa ku baxay oo xisaabin lahayn laakiin 15 machinery uu keenay anigu 40 machinery runtii ma jeeli waxaanu sameynay 5 kaam ayaan dhisnay 5 kaam baa jira 5 area ka shaqeeyaan
ka shaqeeya mashruuca looga shaqeeya waa 3 meelood howlqabada iyo isna 2 kaam meel hal kaam iyo hal karasharada meesha yeelaan ayuu sameeyay runtii shay kasta wuxuu leeyahay qiimeyn value for money أنا ما أكو ما يشال حجالين كتير وعسلي مشروع صاحر مي تعود حتى أحسن ما تعود هالكي معاكم برتين معلوم لكم باختلاف مشروع أفرت مليون ورجل أفرت مليون بان هايستا أنا أفرت نشير بان هاي قلت هالك لقى قاتوا هالكنو أنا أقول لا شيء عن الصرية حد ما تميله يا جماعة لايو لا شيء ميليون مرة كان نقدر goobta aanu tagno dhulkiina uu jooga dhulkiina guurin uu jooga shaqaalina uu jooga qodobka waan codsanaya hadduu diyaar u yahay dhammaantiina waan ku marti qaadayna inaad tagno meesha qodobka labaad waxaan codsan lahayn in labadooda hanti dhowr la geliyo hadduu diyaar u yahay labadeedaba hanti dhowr markaa kaaga la xijala ka qaba iyo kaaga tuugmada kula dhex jiray meesha waxa cadeyn doon waliba hanti dhowr kaan ahayn hanti dhowrka dawladda kullu madax banaan waxa jireen ka dhowr konton hay'adooda madax banaano hanti dhowr marka hadduu diyaar u yahay anagu diyaar baan u nahay waxyaaba cajiibka ah bilaadanku markuu mas'uul yahay ummaddu wuxuu sheegaya waxa qurux badan inay noqoto laba malagna ka bariya ummaddu ku dhageysanaysa kuna 200 aqoon yahan baad hor fadhida مشروعاasi waa 274 kilomitir 2015 bishii tobnaad 16 bisacsi 24 kilomitir baa markaa dhisnaa malaab xismootiinay 24 kilomitir u noqday 250 kilomitir baa harsanaa sidee markaa suurtagal u tahay 2016 kan mashruucaas ku dhamaado 2015 bishii tobnaad uu sacsiday 2016 laba bilood baa ka harsanaa macnaheedu waxa uu been qaawan weeyaan runtii qofku bilaadna inuu xishoodo ayaa fiican dad scholars dad aqoon-yahan rag badan in halkan joogo waxaan ogahay shalay ka yimaadeen aba wixii hore ka yimaadeen wadada ceergaawo horena ay mari jireen waxa inta maanta leh wala waa beenta dhammaan dadka reer Sanaag waxa laga yaabaa dadka qurbaha jooga ama dadka galbeedka jooga inay ka warhayneen maanta waxaan qarayaa in ka badan 50 qof oo ku nool gobolka Sanaag inay leeyihiin waa beenta been baanadu ma daw sheegtay waxa kale oo aan doonayaa inaan idin cadeeyo nidaam baa jira oo daily report ah weekly report ah oo bilaa habeen kasta reportka mashruucan hela wax documentation ah oo ninka kale wareegna mashruucaas documentation hal documentation oo laga hayaa ma jirto maanta haddana anu ka tagno halka waxay dawladeeda ka muuqdo idinka idin qaybin doonaa halkan ka bilowna wadada inta imka gacanta lagu hayo inta cas waa inta aan waxba ka qabanin waana dilo wadaagni wadada mashruucooda ay qaabta greenka ah waa inta dhamaystiran greenka inta buluuga ah waxa inta 90% dhamaystiran ee dambarka u baahan inta cas baa imka marka idin muuqata inta cas waan maraa documentation ka dhamaantii wada haysataan إلا يدي قبيون ملاينا يا إنتعس أيوم بحرني كان واحد ويا مصر ماب أي إمك أي لا مشروع وضع عرقاب وعكلون دون يا أنا أقول شيء إن دولة هراء هي دولة أحس بيجا كلمية وحي قبطاننا ونقوى ضفاننا دولة هراء صدق سنة ما كنت تكتب مشروع وضع عرقاب بالأول أنا بقول لكم أنا أتكلم عن قاعدة ما كان صدق سنة أنا بلعب الدوانو مشروعه wadada Hargeysa Oodweyne iyo Burco waa balan insha Allah hadal ka dhigo waxa kale doonayaa inaan cadeeyo kulay muddo 2 sanadood imtixaanaadkayga noo haray aan ku rajoonayaa 5 sanadood kale inaan ku darsan doono marka aanba hata hiibo badalka ha joogo insha Allah hadal ka dhigo walaad maasantii assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala saadan doonayna iyo magacaygu Axmed Saki Ibrahim Royal TV baan ka socdaa مشروع عرقاوة ودada shacabku si weyn bay